caasimada dalka Pakistan Islamabad ayaa wajahaysa cadaadis inta lagu guda jiro wadaxaajoodka si ay deenta suuqa caalamiga ah ee lacagta adduunka uga qaadato iyadoo suuqa uu u qeexayo in uu dib u eegis ku sameyn doono heshiiska tamarta ee Shiinaha dhexmara marinka dhaqaalaha ee wadajirka ee u dhaxeeya labada dal taasi oo keenaysa shakiga dalalka maaliyadeed ee caalamiga ah. Suuqa ayaa aaminsan in saldhigyada Shiinaha aanan loola dhaqmin si la mid ah saldhigyada maxalliga ah isla markaana ay u baahan yihiin kharashyo badan sababo la xiriira xaalado adag oo Shiinaha dhigay taasoo u dhigaysa qiimaha korontada ee saldhigga Shiinaha oo aad uga badan tahay dalka Pakistan. Waxaa la qorsheeyay in marinka dhaqaalaha la dhammaystiro sanadka 2030 iyadoo la siinayo 700,000 oo fursado ah oo shaqo ah dhinacyo kala duwan leh. Mashruucan oo loo qeybin doono dhowr wajiyo oo la soo gabagabeyn doono wajiga koowaad oo la xiriira horumarinta kaabayaasha wadooyinka iyo horumarinta tamarta iyadoo ay dheeraad u tahay in la bilaabo horumarinta degdega ah ee Gawadar waxaana ku baxaya ku dhawaad 24 bilyan oo dollar ah. Pakistan waxa ay aad uga xisaabtamaysaa marinka si ay u horumariso dhaqaalaha una horumariso kaabayaasha burburay iyo in ay door ku yeelato shaqaalaysiinta tiro badan oo Pakistani ah iyo shaqaalaysiinta dhinacyo badan kuwaasi ay uga muhiimsan yihiin horumarinta beeraha tamarta sida heshiiska ujeedkiisa uu yahay in lagu horumariyo qiimo u dhow 33 bilyan oo dollar ah marka laga soo tago mashaariicda lagu dhiso dhuumaha gaarka ah ee gaaska dhinacyaha ah iyo saliidda labada dal iyadoo Iiraan ay ka qayb qaadanayso. Marka loo eego dhinaca balaaran ee hindisada Belt iyo Road wuxuu aad ugu muhiimsan yahay ganacsiga Shiinaha iyo balaarinta dhaqaalaha marka lagu daro muhiimadda uu leeyahay heerka juqraafiga maadaama hindisadu uu ka dhigan yahay qalab loogu talgalay isku xirka Shiinaha iyo bartamaha Aasiya. Pakistan, Afghanistan iyo Iiraan ku taala gacanka Carbeedka marka laga soo tago galitaanka Afrika iyo Yurub. Marka laga soo tago marinka dhaqaalaha waxaa loo arkaa jadwalka taajka ah ee hindisada Shiinaha maadaama ay tahay habka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo badda Carabta. Sucaad Maxamed Sheikh, Ibro Somali Radio, Nairobi.